بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan maanta aad ugu faraxsanahay in waaxdan Axmed Gurey degmada Hodan inaan maanta dhagax dhignay mashruuc muhiim u ah shacabka Soomaaliyeed oo ah gurmadkii iyo gargaarkii degdega ahaa oo dabdamiskii iyo ambulanskii xarun u noqonaysa tana ujeedada laga leeyahay ay tahay in shacabka loo soo dhaweeyo adeegyada asaasiga u ah muhiimka u ah waxayna qayb ka tahay maamul wanaaga iyo hirgelinta dawlad wanaaga ee dawladda hoose ee Xamar maamulka gobolka Banaadir waxa ka go'an inuu noqdo maamulkii u adeegaya shacabka dhageysanayay tan waxay ku timid kadib markii aan shacabka dhageysanay baahiyahooda waxyaalaha ugu muhiimsan waxa soo baxday in baahi weyn shacabku u qabaan adeegan dabdamiska iyo ambulanska iyo gurmadkii degdega ahaa oo shacabku u baahnaa waqti walba magaalada Muqdisho bacdama ay magaalo baaxad weyn tahay caasimadii dalka tahay waxaan garanay in adeegyadaas hoos loo daadajiyo la geeyo xarumaha dadka u dhow marka maanta waxaan dhagax dhigaynaa degmada Hodan oo runtii aan rabna xaruntaan inay 4 degmo ku dhow u noqoto meel goobtii gurmadka hase yeeshee waxaan naga go'an inaan gaarsiino dhammaan degmooyinka mustaqbalka dhow tan waxay ku timid dadaalkii shacabka ay maamulka annaga waxaan naga go'an adeeg walba iyo shacabka khidmad kasta oo ka qaadno inay u noqoto shacabkana loogu adeego marka waxaan rajaynaynaa shacabka degmooyinkan u soo dhaweyn adeeg inay aad u soo dhaweynayaan kuna farxayaan waxaan kala ka codsanaynaa shacabka ugu baaqaynaa adeegyada asaasiga muhiimka waa wax la rabo in laga wada shaqeeyo maamulka kaligiis kuma filna in ganacsatada iyo Soomaalida kaleba ay kaalin mugla ka qaataan wax kasta oo la sameeyo waxyaalaha ugu ajarka fiican ay ka mid tahay waxyaalahan gargaarka gurmadka waxaan rajaynaynaa in bulshadana lagu adeegi doono maamulkan wuxuu kala diyaariyay gaadiidkii ha noqoto dabdamiskii ambulanskii mar alaale markii xaruntan la dayactirkeeda la dhameystiro in laga howlgali doono oo bisha soo socota baan rajaynayn inay howl gasho oo aragtaan bulshada iyagoo u adeegaya waa maasantiin